waxaa maanta aan xafiiska ku qaabilay ganacsato ka socota wadanka Taiwan ujeedka ganacsatada Taiwan waxay ahayd laba arrimood arinta koowaad waxay ahayd xoolaha oo ay doonayeen in ay xoolaheena ay ka ganacsadaan oo ay dhoofiyaan talabaadna waxay ahayd arinta kalluunka arrimahaas aan aad uga wada hadalay adigu doodayadii iyo waxayagii iyo markaan howlaha aad u doodnay waanu isla soo dhaweynay in ay xoolaha Somaliland ay qaataan waxa kale oo isla soo dhaweynay iyagana in ay kalluunka iyaguna ay qaataan oo ay ka kalluumaysan badeena wixii shuruuc ahayd ee ku xidhnaayeen ee looga baahnaa wixii oo dhan waanu siinay waxyaabo yar yar oo waa jiraan ay ahaayeen mana laga deyn karaa laakiin de waxaanu sharciga waanu hor dhignay markii dambe adigu waan isla qaadanay in ay hawsha bilaabaan waana si degdeg ah ayayna u bilaabi doonaan hawsha marka wada hadalladii inta kuma koobnayna way noo socon doonaan heshiisna waanu kala saxaan doonaa hadii ay bilaahdo